qaybtii shanaad habeenkii wuu aamusnaay balse khasriga gudihiisa dab qarsoodi ayaa ka ololayay jinniyadii dab ayay ka samaysay waxayna istaagtay bartamaha hoolka weyn indhaheedu waxay u ekaayeen laba xidig oo gubanayo eeyihii madoobay silsiladahooda ayay jiidayeen iyagoo sugaya amarka madambeys ah boqorka gacantiisa ayuu ku hayay seeftii balse qalbigiisa cabsi ayaa ka buuxday go'aanka waa maxay ayuu si tartiib ah u yiri boqorkii jinniyadii waxay dhahday go'aanka ma ahan mid adinkani qusay waa mid qadar ah jinniyadii dab ayaa hareeraheeda ku wareegsanaa si xoog leh ayuu u kacay dabkii wuxuu qabsaday derbiyada khasriga habeenkaas qof walba wuxuu fahmay inaysan caadi ahayn wixii dhacay ama sheeko aysan ahayn gabadhii khasriga joogtay waxay furtay kitaabkii qadiimiga ahaa buug cusub ayaa iskiisa isku furay waxaana ku qornaa hal ere oo keliya xukun eeyihii madoowaasi lama filaan ah ayay u aamuseen jinniyadii waxay kor u qaaday gacanteedii debkii oo dhan ayaa hal mar istaagay aamusnaan kadib tiin ayaa damay